maamo Filsan Cismaan Ibrahim waxay si naxariis leh ugu codsanaysaa guud ahaanba ummadda Islaamka oo dhan cid kasta oo muxsiniin oo jecel inay ajarka la baxaan inay soo caawiyaan Najma Xuseen Ciise oo gabadha iyadu dhashay daahaana jirta 10 sano oo muddo 2 sano la ildaran xanuunkaasi oo beerka oo shaqadiisii gabay waxayna ay sheegtay inay dhakhtarro badan oo Soomaaliland geysay iyo sidoo kale dalka Itoobiya balse ay sheegeen inayna waxba ka qaban karin ayna u baahan tahay dalka dibadiisa waxayna ay sheegtay maamo Filsan inay haysato caruur agoon oo ayna awoodin kharashaadka dhakhtarka kaga baxaya ayna u baahan tahay garab istaag buuxa oo ay ummaddu u fidiyaan qurba joog iyo qolqol joog intaba waxana uu codsigeegu u dhignaa sidan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo Filsan Cismaan Ibrahim la yiraahdo oo magaalada Boorama jooga imika tani yar oo Najma Xuseen Ciise la yiraahdo oo da'deeduna 10 jir tahay oo iga xanuunsanayso oo beerka xanuunaya la yiri halka ay Itoobiya halka ay Tirdhabiya meel walba la jigjiga ilaa Boorama xanuunkayga waxba way ka garan waayeen beerka xanuunaya la yiri oo beerka u bugta marka biyo sii daynaya marka biyo sii daayana beerku calooshay biyo buuxsamayaan marka naqaska ku dhigay waxna ma cuni karayso waxna ma cabi karayso daadeedu 10 jir weeyaan agoon weeyaan 5 ciyaalo oo agoonan haystaa awaabahood 2 sano ka hor iyo geeriyooday marka ilaahay naxariista jannada iyadii ummadda Nabi Maxamed ba ka wada waraabsho marka inta yar 10 jir weeyaan daadeedu marka maxaan ku dhahdayay aabaheedna 2 sano ka hor iyo dhintay oo geeriyooday marka daadeedu waa 10 jir marka xanuunkeygu waa beerka ayaan ilaahay beerka xanuunaya oo biyo sii daynaya wadankan waxba laguma qaban kara laga Afrika dibadahaas iyo dalalkaas tashade mooyaane dalalkaas shana aboodida aan ku gaari waayay abood aan ku gaarade ilaahay baa abood iska leh ma jirto marka walaalahayga muslimka ah ee meel kasta ay joogaan ummadda Nabi Maxamed waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan oo taayar oo xanuunsanaysa ee beerka biyo sii daynaya Afrika waxba laga qaban kari waayay hay u soo caawiyaan ba walaalahayga muslimka ayaan ka codsanayaa meel kasta ay joogaanba inayna ii soo duceeyaan ducaa ii soo wada diraan ma ka codsanayaa marka sidaasan in ilaahay walaalahayga muslimka ahow meel kasta joogtaan Allah in barakeeyo waana way ii soo duceynaa waxaad igu tartiinba ducaadan iigu soo daraya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh baan wada salaamaya dhammaan meel kasta joogtiinba intaasi kadib waxa iyaguna makarafoonka ka daba qaatay maamo Ruqiyo oo ka damqatay xanuunka ay gabadha yar ilaa daran tahay iyo waalidkeeda oo awoodin kharashaadka kaga baxaya maadaama ay haysato caruur agoona iyo sidoo kale xildhibaanad Saacada Cabdi Faarax oo kamid ah xildhibaanada dalka Norway oo iyadna aan ku kulanay guriga gabadha yar ee xanuunsanaysa waxayna carabka ku adkeeyeen in si degdeg loo garab istaago ama oo nahay dad islaama oo ay muhiim tahay in la istaakuleeyo maanta waxaan soo booqanay oo la joognaa yartan xanuunsanaysa Najma Xuseen waa yartir waa agoon da'deedu waa 10 jir weeyaan wax weyn waa agoon weeyaan marka waa ilmo wax weeyaan wax la'aan iyo xanuun ay isku bahaysteen weeyaan marka dadka muslimiinta waxaan uga codsanaynaa in ay ilmaha yar u soo gargaaraan waxa ay ku soo tari karaan marka xanuunkeeduna waxa weeyaan beerka ayaa shaqadii joojiyay marka biyo ayuu jirka ku sii deynayaa biyahaas kolba caloosheeda laga shubaa dawaanad aragtaan kulli sida ay tahay xaaladeedu qof kasto arkaa uu arkaya xaaladda ku sugan tahay marka waxa weeyaan in dadku sadaqaad waxa ay la baxayaan ilmaha ay ku soo sadaqadeystaan baan dadka ka codsanayna muslimiinta meel kasta joogaan khayr badan Allah idinka siiyo sadaqaduna waxay badbaadisaa qofka dhibta ku soo socotay ka badbaadisaa waxa weeyaan har uu harsaday Ilaahay maanta qiyaamaha ayuu uga dhigaa marka insha Allah ilmaha waxaad ku soo sadaqaysan kartaan ku soo sadaqadeysta khayr badan baan idin rajaynaynaa waana agoon ilmaha yari agoontan in badan bi Ilaahay kitaabkiina ugu dardaarmay inaan agoomaha maartay aad aan u eegno aad wax ugu gargaarno insha Allah khayr badan baan idin rajaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا حلبان سعادة عبد فارح أبرار وشوقة بورمة وحن ما أنت صوب وقناي نجمة وحنوصن من نجمة حسين وحنوصن وذو أركيسين المها يرقف كست أو ضمير له أو أما المدلي أما مسلمين ما كشرته وحويا ما كمسي حنكره هو يدا سيدي بعتذا يقبته وأيه المها هو حنوصن qof wastaba uu garan kara xanuunka ay leedahay idin hooyooyin iyo abayaalba waanahay marka waxa weeyaan waxaan ka codsanayaa ummadda muslimiinta meel kasto ay joogaan ee Soomaaliyeed meel kasto ay adduunyada joogaan qurqul joog iyo qurba joogba inaynu soo caawino oo isku damqano wuxuu yiri Ilaahay hadda dhulka iskaga naxariisataan ana samadaan niga naxariisanaya marka waxaan idinka codsanayaa in aad dhammaantiin meel kasto aynu wada joogno aynu u damqano maalinta kali hateed in taayir biyaha laga shubayo
waxaa laga qaadaa $20 dhiig laga qaadayo lacag baa laga qaadaa waa agoon ubadkii kale xitaa hooyadaasi dhar wanaajay kaga timiday caruurtii kale agoontiin cid ay kaga timid waayo dee tan yare xanuunsan bay la tacaalisa marka waxa weeye waxaan iga codsanayaa inaga aniga iyo idinkaba sadaqadu waxbay badisaa waxba ma yarayso weeyaan dee waxa weeye ajarna waan ka helaynaa ubadkeeniina waxbaan qabanaynaa ubaxii soo baxay intaasaan idinku dardaarayaa وصحف عشق تلفزيون كسوم نيوز مقالة بورمي حرونتا قبل كاودل